saacadan aan taaganahay wixii ka dambeeyo askarigi ku rida xabad amar la'aan ku rido oo xabad cadow xabad aan ahayn rido saraakiishu waxaan faraynaa iyo laga bilaabo taliyaha oo taliyihiisa unuga iyo haddii taliyaha kooxa uu yahay inta iyo haddii taliyaha ururka taliyaha ururta uu yahay intaba nin mas'uul iyo askari inta ka dhaxayso wixii uu sharciga ka helaa horgeynina soo saas ma soo raali kama idin xabad in la iska rido oo cunug sii seexanayay iyo qof oday ah oo toddoba bari aan seexanin oo lagu duldirirahay oo ama aaday barakac ku dhacay oo qaxay oo tuulooyin kale iyo degmooyin kale aaday كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن أولا أذي الريال يا صاحب ريال يا ولا ريال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب نفتي نيتي ذا وحاول دار ما يا إلهي سبحانه وتعالى عبسدي سه أو أمد إلهي سبحانه وتعالى أدر دار مي زمان ومدي سودان ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن إلهي سبحانه وتعالى لقى عبسده قفك بلا آلن كأه أما مسلم كأه waxaa laga rabo waxa waayo in uu ilaahay ku xirnaado xaalad kasto iyo shu'uun kasta iyo waqti kasta uu joogo intaba meel kasta uu taagan yahay inuu ilaahay uga baqo cabsida ilaahay ayaa waxay ku siinaysaa wax kasta oo ay raadinaysid ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا قرآن كما كان أخرسان in badan oo kamid ah ayadaas soo noqonayo ilaahayna wuxuu naga dardaarmay war hadhimanina ilaa aan dinkoo muslimiin ama ahno ilaahay u hoggaansan oo muuminiin ah waxaan insha Allah ta'ala inaan ruuxi ciidanka u soo feelina aan ka hadlo waqtigana aan ilaaliyo intaas marka waxaan rabaa inaan ugu gudbo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu hadaan akhriyay taqullu haythuma kuntum wattabi' sayyati alhasanata tamhuha وخالق الناس بخلق الحسن مالك سو تاغنتها إلهي اوغا عبسو هدي حمان كاد عدنا وناك راعي ويترتريساي ومد بلا آدم كودلنا وشهينا أخلاق وناكسن كل دغد انت سوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايدين وحا كوان معنيه كوا كلا تبوات قرنيسان انت بدن معناها يكو سلسيهين هدي ان موضوع عاس اما عن ان كهدلنا وقتيغا نوgu dheeraanayo لكن أنت سبحان سكيرنا فرق الكفاية دي مسارنت ما دام المسلمين هاي إلهي سبحانه وتعالى نحن دي سنة إنه ودي سليمك ومستقيمك أن نودله أنت سكدب آدي أدبا نكون هالعلنا يا دمان سراكيل يعيدا بعد الصحافة دا المامول كالدقمة دا يعيد كستو هل كان جوكتو ولو دي عيدا مدي أنت أن كبرا إشغلكم غيهين أغنى لكن هذا انت انا waxaad goobtan nasiib u heshay inaan ay soo istaagto garoonkan oo feelkan ay qayb ka noqoto ka soo noqoto ayada oo xeradana intii kale oo shaqo ka haysay ay jiraan goobo kale oo magaaladii aan ciidanka laga u jiro waxaan rabaa marka awaamir yar kooban ilaahay idinkiis iyo hadalladii ballanqaadkoodii qayb ka mid ah inay maanta fulaan ilaahay idinkiis biidilaahi tacaala waxaan awlan idinkaga mahad celinayaa caqabadii adkeyd oo aan soo marnay oo aad ka cariirigu ahayd oo dad dabcan nala dadna ah shakhsina oo naqaano laakiin maskaxdooda iyo waxay ku shaqeynayaan aqoon weynay aynu wada dhaqmeen oo kamid ahayd in xeradan markii aan iska soo aruurinay magaalada annagoo u naxayno shacabkayga Soomaaliyeed oo deegaankan degan in lagu dhex dagaalamo inay guryo gubtaan in askari kale uu dilo wuxuu ku dilay uusan aqoonin arintaas annagoo xeerinayno waxaan isgelinay go'doon aan gacantanada iyo qorigan wadano iyo awoodda shakhsiga aan leenahay oo ciidan aan uga badbaadi karnaa waxaan isgelinay muddo 2 usbuuc iyo maalmo ah muddo 8 bari ah waxaan ka warsugaynay dadka aqligoodu saan ogaa oo u dhaqmay inay fikiraan waxaan leenahay culimo waxaan leenahay odayaal dhaqan waxaan leenahay hooyooyin waxaan leenahay urur dhalinyaro waxaan leenahay aqoon-yahano deegaankan ku nool waxaan lahayn adinku isceliyo bal kuwaas iyo kuwaan inay wada hadlaan ayaka aqligooda uu shaqeeyo ciidamadii afka laga soo galay iyo xerada meel kasta laga soo istaagay ay ka bixiyaan
kadibna dhahdaan war maxaa idinka maqan oo aad nagu duleysaan nagu godoominaysaan dhibaatada u samaynaysaan waxaad ummaddan u haysaan sheego dowladda Soomaaliyeed waxay ummaddan u heshay seegi iyo saraakiisheeda iyo ciidamadeeda arrintaas ma dhicin oo ugu dambeyntii waa garan kartaan soo waxay xabadda bilaabatay xaaladda aan ku sugnayn iyo waxay ku bilaabatay nin juwaysti la yiraahdo oo aaqil ah baa kalimad fiican ka helay hadda ka hor oo nin kaftamo waay wuxuu yidhi sanadkaanay tii dhacday waxayna hore inaan cunaan ku sigan ciidanka amartaasi waxay ahayd warbiyo barakadaha noogu jiraan maxaa go'ay qorihii darsooyinka idin dhisan duusada oo geedaha ay kugu dhisan raashin ku karsado ilaa xad waxaan dacnay inaan dagaal ka maarano arrinta ayada ahayd oo annaka caqabadooda inaystay maxaa lagu daray caqabad shacabka Soomaaliyeed oo hubka u qaadnay oo u dhaaranay oo aan diriska u xiranay haddana lagu furay oo aad garan kartaan oo ah in isgaarsiintii laga jaray shacabka Soomaaliyeed oo qof $1 ama $2 ay ku jirto telefoonkiisa oo cunugiisa oo gaajo habeenka la siixin waayo habeenka dhow ku yahay ilaa dadka ogtan hawa lacag u ah hawa dadka lacag u ah arrintaas dhacday maxaa ku xigsaday korontadii haddana in la jaro intaas markii kadib cadow noocaas shacabka Soomaaliyeed meel intaan oo askari ah Soomaaliyeed oo ciidamada qaranka oo qalabka siday kamid ay taagan yihiin inaad dhibkaas ku fiirsano suurtagal ma ahayn inta isxakameynay wixii dambi oo looga yimid Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga cafiyo hawsha aad samayseen oo waajibaadka ahayd oo geesinimada lahaydna abaalmarinteeda iyo dalaacadeedana dawladda Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed baa ballan qaaday آخرنا إلهي سبحانه وتعالى وحاول ديسانيا إنه نوجد درو حسناتكيس إلهي نوجد درو بدم داف نوجده تاسع إلهي ديسانيا سوته واحد واجبة أو واحد عن دينسك أقرأ التين بسنة شعب كده بالبلسين ما أنت وحا كفى يدين أو أم كفى يدني إن شرفت قرن من سوق عظمته كل سوق عظمته رجعنا لو دعي ومساجدية لو دعي مساجد اللي يدعي وكل قبطان سوما مساجد بلحة وعلماء جوكت ما أنك العبو قادم يدعي من يا ما أنك أتغني أو نتاير يدعي من ما نورا وحي عاد سميسين يعقبد اللي بيسميه هيلك أو سميسين يعرفتوا ذي أويسي أو قاعدين شيلين كهستان أبوه وعين حرية دي أساسين بي لو يدعي دعاء أسنا وحين لقب وقف كستو أو رأي ياسي مسكح لاسي أركتيات إن لقبي وأنا ما أسيني شعب كان الصوماليات وحرر أمريكا شعب كان نوع عاسة أو صاد بين الدول الجعل أو قفك وناك سمايو وناك أو سمايو أو بدو عيني أو قفك حمان كو سمايو حماتو كو سمايو كو هواريو وشعب مسلمين وشعب ولالو يهويو يأيدو يأبتئه وددكي آن دولدو أهد ددكاس أيضا وناك وحان أهد من نقدقه dadkaas wanaag baa naga deeqo waxaan rabaa dadkaas wanaagooda marka waxyaalo qaad hayaan arkaa oo ka dhex imaanaya ciidamadanada dawladda waxaan rabaa arrintaas ninba ninka kale la joogo midka codkiiga maqlaayo iyo midka halkan fadhiyo waajibkaas inuu qaato maxaa ka mid ah nin baa xukuumada waxaad maqlaysaa adoo nabad ku jif war maxaa dhacay qori baa daraa dagaalka iga cilado waayo وبراوينا ومدحها baa leedahay xara jirta ka baxsan magaalada oo UK leeyahay tan aan joogna ah qorigaas oo in haduu halaysan yahay aad mas'uuliyiinta u sheegto oo meeshaad ku baraaweynaysa meel shacabka Soomaaliyeed dhagahooda iyo maskaxdooda inay dhibeynin ma aha inay noqoto ma laba xabada arrinaysa soo qiimo kuuma fadhido soo tii adiga ka dilaysan ma warshad baa leenahay gaar ah balaxa ku dhax taalo oo ciidamadan ay leeyihiin miya taalo soo wax qiyaas iyo talo iyo ku socdo ma ahan oo qaranka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya warshad huwad ma taale la soo iibiyo ama deeq lagu helo dawladda inoo keenan ma yaa waa saakka xabada aka hadaan kala bixiyo oo ka daadiyo baaruuda qofka xabadnimada ku soo celin kara yaa waa oo in dhacdikeen yeeli karo arrintaas dawlad ahaan khalad bay noogu tahay iyo qasaaro xabadaas dhacayso shacabka Soomaaliyeed oo noo duceynayana oo hooyada iyo cunuga iyo odayga iyo aabaha lana iyo culimada lana oo nooc walba lana uquba nooga imaanayso waxaan rabaa marka
arrintaas saacadan aan taaganahay wixii ka dambeeyo askarigii ku rida xabad amar la'aan ku rido oo xabad cadow xabad aan ahayn rido saraakiishu waxaan faraynaa iyo laga bilaabo taliyaha oo taliyihiisa unuga iyo haddii taliyaha kooxa uu yahay inta iyo haddii taliyaha ururka taliyaha ururta uu yahay intaba nin mas'uul iyo askari inta ka dhaxayso wixii uu sharciga ka helaa horgeynina soo saas ma soo raali kama idin xabad in la iska rido oo cunug sii seexanayay iyo qof oday ah oo 7 bari aan seexanin lagu duldirirahay oo ama aaday barakac ku dhacay oo qaxay oo tuulooyin kale iyo degmooyin kale aaday oo soo noqday markii uu gurigiisa sal ka dhigay hadduu xabad bay ka ugu dirrido soo naxdin kale ma soo matiiba soo noqotay ma waxaan rabaa arrintaas waajibaadkaas inaad qaadataan u dhawa nuglaataan ilaahay subxaanahu wa tacaala ooga cabsataan sharcigana ilaalisaan shacabkiina Soomaaliyeedna aa u turtaan guul baa ku jirtaan ku taaganahay gobonimo iyo geesinimo haysataan sharaf iyo karaama haysataan shacabkii Soomaaliyeed baa idin jecel waxaad aragtay oo ciidamadii fiiri ninna waa la habaarayay ninna waa loo duceynaya marka ay ducada dhinaca kale hoo celin dadkan waa muslimiin gacmaha waxay kor ugu taagaan way helayaan fiiri gacmaha waxay kor ugu taagaan way helayaan waa suurtagal hadda ka hor bayna ku dhacday hadda ka hor baa waxa dhacday magaalada Buulaxaawo ee magaalada badan gobolkan kamid ah intii dawladdu ku meel gaarkeeda carrada soo galay maleeshiyaad qaba ilaa joogi jiray maleeshiyaadkii dadkay dhibeen dadkii waa nacay ilaa Soomaaliya dhan baa dhaho dadkii waa nacay Muqdisho u darneed dadkii waa naceen waa dhibaateysteen shacabka Soomaaliyeed isbaaro qof la iska dilo xumaan dagaal iska socdo ujeedada la'aan ah dadkii Soomaaliyeed gacmaha kor u taageen dadka waa muslimiin ilaahay ku waana dhaafeeday laakiin maysa dhihin ilaahay wax ka khayr badan noogu bedel maysa dhihin maxaa lagu bedelay shabaab mid haysto oo kurki kow qofka halkaas dibkiisa dhigay qofka ducada waa la aqbali laakiin ay kale xilligaas maysa dhihin ilaahay ku waana dhaafiyo ilaahay wax ka khayr badan noogu bedel maysa dhihin laakiin kuwan ducada la aqbalayo waa muslimiin shaki iga jiraanay waxaan rabaa marka waa nala duceeyay ducada nala duceeyay oo shacabkan Soomaaliyeed ay noo duceeyeen oo dal iyo dibad nagala duceynayo oo buuxa wala barwanka u tahay oo culimadoodii iyo caamadoodii ay ilaahay bariyay kor gacmaha u taageen saqiir iyo kabiirba waxaan rabaa ducadaas inaad sii dhamaystirataan laakiin wax caqabad ah oo kale oo shacabkaas ku timaado inaan laga shaqeyn askarigi warka aad u dhigeysto xilli adag oo aan shabaab la diriirnay oo ciidamada xaquuq ay salahayn oo si mushaar lahayn oo si garaam lahayn oo wax xaq ah oo dawladda ay ku leeyihiin ay sii jirin ragga soo wada shaqeeyay halkaan joogan oo balxa degmadan ay haysan shabaab ay haysteen oo 30 kilomitir geedooda shabaab ay door u joogeen oo luuq haysteen oo koonfurta Soomaaliyeed kala bar ay haysteen xaalad adag ku soo shaqeynaa jirto walaas askariga sax ay khalad dhabarka marsin jirin inta gacanta qabsado baan dhihi jiray anaga la ilaahdo waxaan Soomaa hadda hawshu waxba ka duwan askari dawladeed baa tahay xaquuq baa leedahay kii aan xaq lahayna xaradaan hadda hawshu ka bilaabatay haddana way bilaaban garbaar waa ka socotay Soomaa waa ogeedeen xaradaan imaan insha Raxmaan gabar dheeray tagi goob kasta oo maxay ahayd boorgaras u sheesay tagi yurku bay tagi luuq bay tagi walow luuq ay xaalad ka jirto oo aan rabna xaaladaas ilaahay idinkiis in ay ku xalismato sida ugu qurux badan oo ugu wanaagsan oo dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamadana isku daadanayo ay ku akaato intii hore ilaahay idinkiis ragga jooga mas'uuliyiintaana waa wada hadalnay dhinac kastaba odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha inaan dhiig dambe walaal la daadinin hawshaasna xal loo helaan ka baa ku ballan waana nool insha Allah taala dhammaan marka ciidamada gobolka saan u ballan qaadnay dawladda qorshe ugu soo dirtay dib u habeen sax ah iyo ciidan wanaagsan oo xaquuqdiisa dawladda ka helo waajibaadkiisa guto ba sameynayna ilaahay idinkiis oo ragiini aan halkan ugu imid dhiig iyo kuwa kale gobolka joogo dhiig cusub oo hor leh oo dawladnimo lagu shubay ilaahay